kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo kulan kale iyo barnaamijkeeni toddobaadlaha ahaa ee garwaaqso daawadayaal barnaamijkeena toddobaadkan waxa marti igu ah ganacsade caan ah oo inooga yimid dalka Mareykanka Cismaan Axmed Aabo oo ku magac dheer Cismaan Banaadiri oo inaga yimid dalkaasi Mareykanka isla markaasina gudoomiye ka ah jaaliyada Banaadiriga ee dalka Mareykanka Cismaan waa taageero weyn oo runtii ku soo korodhay shacabka reer Soomaaliland isla markaasina mar walba ka hadla oo bararka qaar koodna runtii isagu sida muwaadiniinta reer Soomaaliland contributionka dalka hadii wada la sameeynayo hadii isbitaal la sameeynayo isagu aad iyo aad uga qayb qaata oo dhawaan dalka soo gaaray barbarkayga bidix waxa asaguna inagu wehelinaya barnaamijkeena oo marti inagu ah Professor Axmed Golcade oo isagu professorada jaamacadda Hargeysa kamida isla markaa isaga laftarkiisuna jaaliyada reer Soomaaliland ee dalka Mareykanka kamid ah laakiin imika sanadadii ugu dambeeyay dalka yimid isla markaasina aqoontiisii dib uga soo noqday ugu horeyn aan ku soo dhaweeyo Cismaan Banaadiri Cismaan ku soo dhawow barnaamijkan iyo telefishinka qaranka iyo guud ahaanba Soomaaliland السلام عليكم marka hore waan salaamaya shacabka reer Soomaaliland rag iyo dumar odayaal indar garadka marka kale waxaan salaamayaa ciidamada qaranka ee Soomaaliland waxa kale salaamayaa madaxweynaha dalka Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaanyo waxaan ku leeyahay guuleyso wadanka barwaaqo baad ka dhigtay waxaan salaamayaa saddexda gudoomiye xisbiyada ucud gudoomiye Faysal Ali Waraabe waxa kale salaamayaa gudoomiyaha wadani Abdurrahmaan Ciro iyo gudoomiyaha kulmiye Muuse Biixi marka salaan intaas iga gudoomo anigu waxaan ka imid dalka Mareykanka waxaan markasta hiil iyo hooba u taaganahay qadiyada Soomaaliland inay ka badax banaanaato Soomaalida inteeda kale waxaan jecelahay waana gaaraysan waana tihiin waana u mudan tihiin marka qof kasta oo koonfurta ka socdo waxaan u sheegayaa walaalaheena inaan soo dhaweysaan inaad u aqoonsataan inay Soomaaliland dawlad yihiin aan ku soo dhaweeyo Axmed Golcade waan dhawahay nimco salaamullaahi calaykum sida Cismaan baa uu sheegay marka salaanta uu gudbiyay mar walba waxaan salaamaynaa mar walba aan garab taaganahay mar walba aan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa Ilaahay baa mahadle ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastoo ay caawa joogaan amba ay naga daawanayaan gaarka ka ah maxaan ku raadayay gobonnimada iyo qarannimada dalkan iyo dadkiisa waxa aad iyo aad farxad gaar ah ee saaxiibkay Cismaan Axmed Aabo Cismaan Banaadiri oo ka yimid Minnesota oo ah gobol ka tirsan dalka Mareykanka iyo anigoo ka yimid gobolka Ohio
runtiina maxaan ku raadayay labadayaduba aanu ka nahay dad community-ga ku xiriirsan horumarintooda iyo hagaajintoodana aad uga qayb qaatay intii anigu halkaa joogay isaguna dee iminkaabuu ka yimid oo weli wuu joogaa cismaan wuxuu dheeraya waa isaga laftii waa ganacsade laakiin caawa halkan waxaanu u wada fadhinaa labadayaduba annagoo maraykan ka nimid annagoo labadayaduba maraykanka dadka citizenska ee maraykanka ka mida oo ah American Somalilanders waxaanu mar walba isku daynaa inaanu xoojino xiriirka dalka aanu ka nimid ee aanu ku noolayn ee sida wanaagsanna loogu soo dhaweeyey iyo jamhuuriyadda Somaliland waxa weeye waxa hiilka la yiraahdaa waa wax aad u weyn waa waxaad hadiyad u bixin karto qof aad jeceshay amba dad aad jeceshay amba dal aad jeceshay aad siin karto cismaana taasuu buu sameeyey madaxdeena marka ay Mareykan aadaan madaxda xukuumadda ka tirsan kiyo aad iyo aad garwadeennimada iyo kartida iyo madaxweynenimada madaxweyne Axmed Siilaan iyo had iyo jeer ay u suran tahay maxaan ku raadayay laabta madaxdeenu marka ay tagaan Mareykan uu soo dhaweeyay aad iyo aad buu soo dhaweeyaa dadka aan reer Soomaali ahayn wuxuu ka mid yahay sida gaarka ah iyo sida gobonnimada leh uga qayb qaata horumarka maxaan ku raadayay dhismaha dalkan aad baan ku soo dhaweynaynaa Cismaanow waxaan joognaa Hidaloor waa nabadgelyada waa markhaatibaad ka tahay nabadgelya taala dalkan nimca Allah taala alxamdulilaahi rabbil caalamiin saaxiibka Cismaan waxaan leeyahay wax kastood noo qabatay waad noo hiilisay ilaahay ha kuu hiiliyo aad iyo aadna waad mahadsan tahay waayahay Cismaan aan soo gudbo Cismaan ma markii kuugu horeysay baa maxaan idhaahdaa aad timaado dalkani Somaliland waa markii labaad aan imaado Somaliland markii hore last year baan joogay waa soo arkay waa soo indheeyay markii labaad airport-ka lagu qabtay qasab baa lagu yiri oo ku casuumayna anaga noo timid cid kale noo imaanin meeshaan walaalahayga degan qaraabadeeda degan aan u imid iyo waxaan u imaaday heer banaadir waa ina dawladda Somaliland waa inay aqoonsadaan oo maartay qoomiyada jira inay yihiin inay wax u qabtaan oo anaga dad farsamadii xadaaradii cilbigii waa leenahay laakiin dawladda ha ogaato dadka banaadir oo ku nool Somaliland meel kasta ahaato buro kamide ahaato berbera زيلة أهاتو مال كستو هرجيس أهاتو وحلو دولة إلقاء بيكون في سو تيمد لبات وعنك هذا يا دليرة السومالي لان أي قبل ودايع سني دليرة دي ويكحيان وأنا غالي كمئي بدي يكون واحد تقريبا غالي كمئي أنا مركزتو دليرة أنجوبا بيا حتى وحال شري حتى جامعة كتالو سعفيتو بين وح كبرتال وعن أبلغ هذا كاميرين أو كانوا يو تي في آر نوس يو كمبيوتر أنا أقضى وجيب كي markaan arkay aan wax baan qabanaa aan waxaan rabaa qoomiyaddeeda banaadiri in wax loo qabto madaxda dadkaas ilku fiiriyaan dad masaakiin oo dulman weeye qofka dulmiya waa loo gargaaraa hadda u gargaartiina in horumar baa gaaraysan marka madaxda waxaan ka codsanayaa dadkayga walaalahayga oo reer banaadiri ah walaalihiina ah wax u qabta u gargaara dhalinyarada iyo wadankii ka bixin yaan baasaboor la siinin wadanka joog waa lafo dhabarkii waay hadday ka tagaan wax ni soconay male marka dadkii u soo jeesta dalkii u soo jeesta marka hataa shacabku waxaan oran lahaa dawladda isku haleynina sanduuq samaysta sanduuqaas oo organization ah oo qof maamul oo loo dhiibo isbadooyinka la dhiso iska u qabso donation lagu dhiibo aan Somaliland u dhan koonfurta u dhashay haddana waxaan jeclaa Somaliland inaan taageero oo wax kasta ku bixiyo wadooyinkaas sabab qofkiiba uu dhiibo bishii $10 ama $5 wax ka yar wax bay qabataa cirbada markii Allah aruurtu waa masaar wax bay goysaa marka dawladda shacabku aan ku oran lahaa dawladda isku haleynina dawladdu waa maamul shacabkiina waxa loo baahay lacagta inay bixiyaan oo alooshooda xirtaan lacagta bixin wadada iyaga dhisi kara shacabka wax dhisma dawladdu wax ma dhisto shacabka ku dadaala inaad wax u qabataan dalkiina iyo dadkiina iyo qofka ajnabiga oo ku nool waa inaad wax siisaan Cismaan waxa tahay sidaynu dadweynaha u sheegnay gudoomiyaha jaaliyada Minnesota maxaan idhaahdaa banaadiriga taageerada Somaliland ma kaligaaba u soo baxay mise way kugu weheliyaan maxaa jaaliyadaasi aad gudoomiyaha u tahay oo taageero way u muujiyaan Somaliland meel ay joogaanba horta runtii
anigu hadeer ma bilaabin 2008kii mar shirka 18 May ay isku imaadeen hooliyar markaan arkay maalintaasaan niyeystay inaan maaragtay Somaliland inaan wax u qabto dhaqaale ku bixiyo maskax ku bixiyo waqti aan ku bixiyo markaasaan ku talagal sababtoo waxa waaye ana 1977 hargeysan ka shaqaysanahay lacagtaan ku shaqaystay ana xamar ku aad ku guursaday marka behrad baan ku furtay marka waxa la yiri geetada harsateed lama jaro biyo lagu shubaa aan saas dartiis ayaan taageeraa ina qoomiyad jirtihiin oo wax qabad leedihiin wax tartihiin يا واسكو حرنتين midnimadii iyo nabadii iyo nidaamkeed ku dadaasheen waan u jeedaa sanad kasto saasan u imaada wili waxa ma jecel hadaa dhinto in Hargeysa lagu caaso haduu Ilaahay idmo inta noolahay waan taageerayaa Somaliland waayahay maadaama taageero Somaliland tahay balse aanad u dhalan oo aad koonfurta Soomaaliya aad u dhalatay maxaad kala socotaa taariikhda Somaliland iyo Soomaaliya waxay hayeen laba dal oo sanadkii 1960kii kowdii July isku biiray Somaliland sidoo ka warhayno ay taariikhdu inoo tilmaamayso 1960kii Juun waxay ahayd Soomaalidii ugu horeysay ee isticmaalka ka qaadata gobonimadooda deeto labada dal baa isku biiray Somaliland iyo koonfurta Soomaaliya iyadoo ujeedada looga gol lahaa ay ahayd in maxaan idhaahdaa shan Soomaaliyeed la isku keeno taariikhda maxaad kala socotaa oo caawa la wadaagi lahayd daawadayaasha barnaamijkeena daawanaya marka bulshada Soomaaliyeed oo xamar degan ama koonfurta degan waxaan u sheegayaa dadkan markay noo imaanayaan oo nagu darsamay shuruud la'aan bay noogu imaadeen shuruud la'aan ayay noogu imaadeen way nagu darsadeen markii siyaasadii wadankii oo degay oo midnimadii la helay Soomaalinimadii la helay ay ku darsameen markaas waxa lagu sameeyay macnaha waxa la rabay in iyaga iyo dhanba la xasuuqo in la baabi'iyo loogu talagalay in diyaar lagu rusheeyo markay xamar imaadeen dhibaato kale loo geystay hantida Hargeysa taali ayaa xamar la keenay ani waxaas baan ogaal baan u ahay markaasaan ka damqan jiraan ummad la dhibaateeyo ma jecli annaga Somaliland hadaan maxay reer koonfur dhibaato u geysani waxa loo baahan yahay iyo isku duuban in madaxdii odayaashii koonfurta wasiiradii ulama diinkii inaan u imaano aan isku dhiibnaan dhana raali ahaada sahal kumay iman Somaliland tani sidaad adigu mooday saymaadan calankii naga kalay sitiinkii soo noqotay maande saymaadan calankii naga kalay sitiinkii soo noqotay maande saddex nagu wallaahiya dadka waxay ka simayiin haddii samahaada leebiyo lagu gano sawaariikh haddii samahaada leebiyo lagu gano sawaariikh wax kastoona seegaba simadayno nabadee saddex nagu wallaahiya dadka waxay ka simayiin haddii samahaada leebiyo lagu gano sawaariikh haddii samahaada leebiyo lagu gano sawaariikh wax kastoona
waayahay cismaan aan markan u gudbo axmed goolcadde axmed waxaad ka mid ahayd dadkii soo dhaweeyey maxaa cismaan banaadiri soo dhaweyntaasi dad saaxiibaad ahaydeen mise taageerada somalilan maxaa la dhahdaa u hayo maxaa cismaan darteed baad ku soo dhaweyseen labaduba way jiraan saaxiibtinimaduna way jirtaa taageeraduna uu u hayo somalilan iyo dareenkiisa nool iyo damiirkiisa shaqeeyeyna waan ku soo dhoweynay xagga kale markaan ka eega dee laba nin oo maraykan baanu nahay marka dadka waanu iska xignaa sharciga maraykankana waanu dhowrnaa aniga cismaan waxaanu ku jirnaa hawl iyo inta kale de nala midkayba labada jinsiyood haysataa inaanu dalkan somalilan iyo dadkiisa iyo dalka maraykan aanu si ilbaxnimo ku jirto isugu soo dhoweyno oo aad iyo aad u qiimo badan iyaguna wayna ogyihiin halkaynu marayno innaguna meel aanu higsanno oo horumarka ay gaadheen inaan maalin gaadhno oo halkan laga gaadho aad baan u rajaynaynaa haddii aan u soo noqdo jaaliyadda amba dadweynaha banaadiriga ah way fara badan yihiin qabiil haddii lagu qiyaaso ilaa 48 qabiil bay u qaybsamaan baydhabo kismaayo iyo banaadirba way degaan waxyaabo badan oo isaga eegnay baa jira xagga dhaqanka waa dad marka hore ganacsiga aad iyo aad khibrad gaar ah u leh waa dad nabadda jecel waa dad macnaha nabaddu macno u samayso waa dad martida soora in martida soorana waxaa inooga waftigii madaxweyne ku-xigeenku watay wuu tegey waftigii uu watay gudoomiyaha baarlamaanka cabdiraxmaan xidow wuu tegey xirsi xasan xaaji caalina markuu wasiirka ahaa minnesota way isku arkeen intaba wuu soo dhoweeyey intaba wuu sooriyeeyey intaba ajandihii ay u socdeen waxbuu ka qabtay marka waa qof nagu dheer waa qof isaga iyo jaaliyadiisa anu aqoon gaara dee state aan ka yimid waxaayba way degan yihiin marka aqoon gaaraan leeyahay waa dad saaxiibtimo leh waa dad dhaqan leh waa dad nabadda jecel waa dad diinta islaamkana aad ugu dhowo maxaan ku raadaay taasina way jirtaa marka cismaan waa qof aad noogu weyn runtu siday tahayna maxaan ku raadaay meel walba waanu ku qiimeynaynaa waxaan ognahay China tegey inuu la kulmay jaaliyadda reer Somaliland China iyo siiba ardayda wax ka barata China in uu ku dhiirigeliyay inay dalkoodii u maqan yihiin marka cismaan Somaliland u maqan cismaan uu amba baxaya kulli safar dheer buu galayaa ilaahay nabadgeliyo iyo naruuraha ku soo celiyo waxaan leeyahay dadkooda aabiyahooda cismaan oo safarka dheer galayso haddii dalkii maraykan adiga horeysana salaam diiran iga gaarsiiyay qowmiyadii oo dhan iyo community aanu ka nimid aad iyo aad baan kuugu hanweynahay wadna la jirtaa wadna jeceshahay wadna la degantahay ilaahay ha ku jeclaado oo ha kula jiro salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay gabagabadii taaganay cismaan safar kooban oo aad u kooban ayaad ku timid Somaliland nuxur ahaan safarkaagu muxuu daaranaa والله سفركي waxaan u imid horta inaan familkeyga oo meesha degan inaan soo salaamo iyo shacabka si uu soo meesha lagu soo dhaweeyay saaxibkeyga Xaashi Ismaaciil maraykanka isku baranay waa nin aad u wanaagsan halkan dhan waxaan dhan asaas ugu keenay qoftan oo carabna asaa meesha ugu balamiyay qof fiican waaye midiyahan waxa loo baahan yahay marka adduunka waa meediyaha adduun waa loo baahan yahay in dadka wax loo qabto waxaan arkay dad aad u fiican si fiican baa li soo dhaweeyay yaa kugu soo dhaweeyay Somaliland markaa timid guud ahaanba waxa igu soo dhaweeyay Xaashi Ismaaciil iyo waxaan ila fadhiyo hadeer meesha oo waraysi soo u yaqaano iyo waxa uu galo waxaan gudno oo ka sheekeynay marka way soo dhaweeysan ilaahna soo dhaweeyo bash iyo barwaaqo ayaan rajeynayaa waxaan kulmay labada waa la kulmay marka insha Allah waxaan u rajeeyay waa aad baa li soo dhaweeyay
waa yimi haddana dad badan baan la kulmay odayaal dhaqameed baan la kulmay arrimihii banaadiriyana waa ka hadalnay arrimihii kale waa ka hadal haddaan xagga tagana Minneapolis waan ka hadli doonaa shirweynaan u samaynaa waxa ay qabtaan waxay galeen waan ka hadli doonaa shirweynaan u samaynaa reer Somaliland cismaan waxyaabihii kuugu la yaabka badnaa markii aad Somaliland timid maxaa ka mid ah والله markii airportka aan ku soo degay markii ugu horeysay waa sanadkii hore 2015kii cidna nala tashan airportka markaan ku soo degay waxaan ogaaday inuu aan cidna u baxnayn marka labaad waxaan watay 2 sanamood oo dukaanka meherad walaalkii ku lahaa sanamanka laga qabsaday customkaan tagay markaasaa lagu yiri sanamankaan intaad wadaa waxaan wadaa dukaan walaalkii baa meherad ku leh 2 sano waxaa la yiri marka madax buu leeyahay waxaan dhahay maya markii dambe waxay dhaheen hadduu madax leeyahay madaxa laga jaraa waan lagu ganaaxaa markay arkeen sanamada baakada laga furay madaxba ma lahayn intaasaa iiga yaaban waxaa la yiri walaalo alaabtaada la bax waa intaas waa mucjiso ila noqotay alaabtii shandadii saa Mareykan ugu xiray Dubai ugu soo xiray guriga qofka ugu soo jabiyay xaashina taa waa ila socday marka furiha jibinay furiha taa waa kala badbatay inaan waxaan dhahay meeshan adduunyada ka jirtay nimca ka jirtay cidna uma baahnid nabadgelyo baa haysataa sanamankii haday ogaadeen waa diinta qayb ka mid ah waaye sananka ma fiicna u madax leeyahay marka dawladda iyo customka waxaan ugu mahadcelinayaa dadka aba fududeeyo waan u fududaanayaan dibna ma jiro meeshan sanadii lama taabanin gurigay aan ku aaday si nabad ah haddana waxaan ku soo baxay si nabad ah marka wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal barnaamijkeennii toddobaadkan ee garwaaqso intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa waxa aan jeclahay inaan si mugli oo miisaanle ugu mahadnaqo barbarkayga midig waxa fadhiya gudoomiye Cismaan Axmed Aabo oo Cismaan Banaadiri ku magac dheer oo dalka Mareykanka inooga yimid dhankan kale waxa iga fadhiya Professor Axmed Yuusuf Goolcadde oo kamid ah mas'uuliyiinta jaamacadda Hargeysa isla markaasina asaguna ka soo laabtay dalka Mareykanka daawadayaal caawa halkan waxaad ka arkaysaan labada calan ee Somaliland calanka Somaliland iyo calanka dalka Mareykanka oo dabcan ka turjumaya dalkeena Somaliland iyo dalka Mareykanka oo dabcan martideenu ay yihiin dad reer Mareykan marka laga tago asal ahaan halka ay ka soo jeedaan daawadayaal si aad iyo aad u weyn ayaan martida ugu mahadnaqaya waxa kale oo aan jeclahay inaan asna u mahadnaqo kamaramaanka iyo dhanka farsamada barnaamijkeena hagaya Maxamed Deeq Axmed Cali oo alaababa idin soo gaarsiiyay barnaamijka daawadayaal idinkana idinmaan ilaawin si weyn ayaan idinku mahadnaqayaa waqtiga qaaligaad nasiiseen ee aad kula socoteen programka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxa kale oo aan guud ahaan u mahadnaqayaa madaxda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta dalkani Jamhuuriyadda Somaliland daawadayaal tan iyo intaynu barnaamijkan la mid ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad geliyo Sociedade nabada